xaflad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay oo loo qabtay 125 arday oo ka qalin jabiyay markaska Imaam Shaafici lidacwati wa tacliim ayaa ka dhacday xarunta markaskaasi magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay culimaadudiin waalidiin ardayda qalin jabinaysay maamulka gobolka Togdheer qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee miisaanka culus ku leh Somaliland iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa ka hadlay madasha maamulaha markaska Imaam Shaafici Sheikh Yuusuf Maxamuud Diiriye oo tilmaamay qiimaha uu ku leeyahay bulshada Soomaalida markaska barashada shariicada Islaamka ee Imaam Shaafici intii ay socotay munaasabadani waxa ka hadlay xubnaha ay kamid ahaayeen xogayaha markaska Imaam Shaafici Abdi Basid Abdi Nuur Xaaji Saciid Suldaan Sheikh Yuusuf Abdi Awad Suldaan Maxamuud Guulad Mire gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Al-Najaax Dr. Xasan Sheikh Ali Warsame Sheikh Mustafa Aadan iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xayd xafladan aynu maanta qabanayno waa xafladii sagaalaad ee arday ka qalin jabisa markaskan Imaam Shaafici lidacwati wa tacliim runtii dafcadani waa dafcadii ugu faraha badnayd weeye waa 125 arday oo isugu jira habla iyo inamaba waa 3 galaas bay ahaayeen 2 galaas oo ina habla iyo galaas inama waa qaybtii ugu badnayd ee ka qalin jabisay waxa caado ah markasku sanad kasta oo takharuj ardaydu ay ka baxayso inay soo korodho oo intii hore ay ka badato ardayda sanadkan ka baxaysa runtii waa arday cilmiga sharciga baratay 4 sanadood qaarkood ay dhiganayeen oo qolada sanadkii hoose looga soo bilaabay 4 ay dhiganayeen qoliyahaas dugsiga sare looga bilaabay soo dhameystay waxbarashada hore soo dhameystayna 3 sano ay dhiganayeen ilaa 600 oo arday iyo dheeraad ba ka baxday oo kulligood ay jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda ka wada hawl galeen aad iyo aad buu runtii makaana weyn markasku ugu leeyahay bulshadeena Soomaaliyeed guud ahaan ama teenan Somaliland ba gaar ahaan gobolka Togdheer iyo degmada Burco cilmiga sharciga ardayda baranaysa ka soo baxaysa qiimo weyn bay u leeyihiin in la inta af Soomaali ku hadasho marka laga soo qaado halkan un baa xoogiisu aad iyo aad uga hawlgali jiray maxadku runtii furuuc fara badan ama qaybo badan oo magaalada kamid ah buu doonayaa inuu sanadka kordhiyo oo qaar koodna la iftitaaxiyay oo la furay qaar kalena imka la furayo daafaha magaalada waa maalin la tawdiicinayo oo la sagootinayo dufcadii sagaalaad ee macadka ka qalin jabisay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markaas Imaam Shaafici dhalinyaradi markaas Imaam Shaafici uu soo saaray waa la garanay marka Allah barakeeyo markaskani ilaahayna waxaan idinka baryayaa inuu ilaahay idinka dhigo cilmiga ay barteen iyaguna nafahooda ku anfaca oo diintooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba ku anfaca ilaahay idinka dhigo juhdigii iyo dadaalkii iyo tacabkii ay soo gal inoogu soo gabagabeeyay ardayda xulka ee tirada badan ee waxa weeye kitaabka Allah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye bartay waa wax aad iyo aad Allah subhanahu wa ta'ala looga mahad celiyo biidnaahi ta'ala ardayda qalin jabisay ilaahay waxaan uga baryaa tabaaraka wa ta'ala inuu sugo ina dariiqa wanaagsan ee ahaysaan ku sii sugnaataan jaamicatu najaax ayaa idin sugaysa insha Allah ta'ala oo lagu ogayo wixii ilaahay inoo abuurtay waxaanu markaas Imaam Shaafici waxaan dheernay dalka Soomaaliya ama Somaliland waxaanu naaraa jaamicatu najaax waxaanu dheernaa dalka intiisa kala dheerribanayna gabagabadii waxa abaalmarino kala duwan la gudoonsiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay markaska Imaam Shaafici ayaa soo saaray culimo badan oo ku sugan deegaanada Soomaalidu degto xidhiidhna la leh jaamacadda Islaamiga Al-Najaax Ali Daahir Maxamed Boos TV caalamiga Universal Burco.